waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beelweynta reer Sheekh Maxamed Madiba ayaa shiray iskugu yimaadeen magaalada Tangorowe waxay si kulul uga soo horjeesteen hadal ay ku sheegeen in lagu baabi'inayo isirkooda oo ka soo yeeray sida ay tilmaameen mid ka mid ah beelaha degan ismaamulka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga bayaan ay beeshu saxiixday oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxa aqriyay Sakariye Khaliif oo ka mid ahaa xubnihii shirkan soo qaban qaabiyay iyadoo maalmihii u dambeeyay ay ka socdeen Garowe shirar isdaba jooga oo u dhaxeeyay qaybaha kala duwan ee bulshada beesha Madibaan ayna kaga tashanayeen masiirkooda iyo qorshayaasha dhanka horumarka ee ay beeshu ku talaabsatay muddooyinkii la soo dhaafay isla markaana lagu gorfeynayay shirarkaasi sidii tallaabo cad oo aan turxaan lahayn ay beeshu uga qaadan lahayd hadal xanaf iyo xasaasiyad abuuray oo ka soo baxay shirar isdaba joog ahaa oo dhawaan ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ummadiisa abuuray isaga ayaana ka dhigay qabiilooyin kala duwan si ay isugu kala gartaan balse waxa kaliya ee lagu kala sareeyaa ay tahay taqwada Alle isagoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala arinta ku cadeeyay kitaabkiisa munazalka waana mid u baahan in qof kasta oo muslim ahi uu adeeco waxyaalaha uu tilmaamay kitaabka Alle subxaanahu wa ta'ala kana dhowrsado inuu ku gafo oo been ka sheego aayaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidaa darteed kadib shirarkii beesha Madibaan uga socday caasimadda Puntland ee Garowe waxay beeshu ka soo saartay bayaankan oo ay ugu tala gashay inay ku tilmaanto kuna cadeyso mowqifkeeda kaga aadan hadalkii ka soo yeeray rag ka mid ah beesha Bartire ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya qodobada bayaanka hadalkii ka soo baxay kulamadii uu soo abaabulay maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuu ahaa mid ay beeshu u fasiratay in dana gaar laga lahaa isla markaana la doonayay in waxyeello loogu geysto laguna kala qaybiyo qabiilooyinka Soomaaliyeed ee dulmiga tirsanaya oo ay beesha Madibaan ka mid tahay beesha Madibaan waxay ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed ee sida weyn looga dhex yaqaano geyiga Soomaalida isla markaana leh meel loo raaco oo ay ku abtirsadaan iyadoo ay intaasi u dheer tahay inay tahay beel lagu yaqaan taariikh soo jireen ah oo mug iyo miisaan weyn baxambaarsan kana mid ah qabiilooyinka loogu yimi dhulka iyo deegaanada Soomaaliya oo dhan qodobka saddexaad iyadoo ay beeshu ka xun tahay tallaabada kala qaybinta iyo cunsuriyadu ku dahaaran tahay ee ay qaaday beesha Bartire waxay beeshu si weyn u cambaaraynaysaa hadalkaas oo ahaa hadal gaf iyo bahdil ku ah jiritaanka iyo dadnimada beesha Madibaan isla markaana aan ku habboonayn inuu ka soo yeero mas'uuliyiin iyo waxgarad ka mid ah beesha Bartire qodobka afraad waxay beeshu ku faanaysaa inay tahay beel si weyn uga dhex muuqata Soomaalida oo dhan kuna abtirsata tafiirtii uu ka tagay Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Madibe ayna ka mid tahay qabiilooyinka muslimka ah ee dunidan oo dhan ku nool Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu u hibeeyay hal abuur iyo xirfado u gooni ah oo ay noloshooda ku maareyn karaan iyagoon cid kale oo ibnu aadama gacmaha u horsan qodobka shanaad beesha Madibaan waxay cadeynaysaa in arintaasi ay fasiraad rasmi ah ka bixinayso cunsuriyadii iyo takoorkii soo jireenka ahaa ee uga imanayay bulshada kale ee Soomaalida oo dib loo casriyeeyay laguna sameeyay dardargelin si loo beeniyo jiritaanka beesha Madibaan laguna la dagaalamo horumarka ay beeshu ka gaartay aayaheeda nololeed sidoo kalena lagu curiyaamiyo taranka wanaagsan ee ay beeshu samaysay isla markaana wax kama jiraan loogu tilmaamo abtirsiinyaha iyo tafiirta beesha Madibaan balse arintaasi waxay beeshu u aragtaa mid leh khatarteeda gaarka ah oo aanay ogolaanayn isla markaana aqbalayn in waxyeello loo geysto
dadnimadooda waxayna arrintaas beeshu ku tilmaantay inay tahay mid aan ku bannaanayn shareecada islaamka qodobka lixaad waxay odayaasha aqoon-yahanka culamaa udiinka dhallinyarada haweenka siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada beesha Madhibaan ay si weyn u bogaadinayaan madaxda kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka qayb ka mid ahi ay ku hawlan yihiin sidii loo tirtiri lahaa cunsuriyadda lagu hayo bulshada dulmiga tirsanaysa isla markaana loo kobcin lahaa nolosha iyo aayaha bulshadaas loogana faa'iideysan lahaa hal abuurka iyo xirfadaha ay gaarka u leeyihiin isla markaana loo heli lahaa saamiga ay ku leeyihiin dawladnimada iyo horumarka dalka ka socda ugu dambeyn waxay beeshu ugu baaqaysaa kulana talinaysaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar inuusan taageerin hadalkii ka soo yeeray beesha Bartire ee salka ku hayay in la isir dooriyo beesha Madhibaan waxayna beesha Madhibaan sidoo kale ugu baaqaysaa madaxweynaha iyo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya inay ka tanaasulaan faquuqa iyo cunsuriyadda casriyeysan ee la wajahay xilligan iyo kala qaybinta lagu hayo bulshada dulmiga tirsanaysa isla markaana laga qayb qaato horumarinta bulshadaas waxay sidoo kale beeshu ku baaqaysaa in lagu daydo oo la raaco dariiqa wanaagsan ee ay qaadeen madaxda kala duwan ee qaranka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaar bayaankan waxaa ku midaysan dhammaan beesha Madhibaan qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanada Puntland iyagoo u diyaar garoobay inay iska difaacaan tallaabo kasta oo waxyeello u geysan karta jiritaankooda iyo dadnimadooda intaba waxaana saxiixay odayaasha dhaqanka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta beesha barigi sayid maxamed boqortooyadii cismaan bartiro Madhibaan ku burhaan bay lahaan jireen barooniyo waxay wateen beebayo rasaas biisa ingiriisku dhulka waa ka baafin jiray burjay laayihiin arakaleed haw badan siyaasiyiin iyo waxgaradkii ka hadlay kulanka beeshan ayaa dhankooda ku tilmaamay hadalkaasi mid aan loo meeldayan oo dib ku ah jiritaanka beeshooda ninka hadalkaas sheegay oo damca dadkan inuu asal dooriyo oo dad ayan ahayn damca inuu dulsaar kaga dhigo wax ma oran kii qalbiga u raariciyo raalli uga noqdo ku aamusayna wax macna leh iyo sharaf ma u qaadan waa midabta koor waa kala qaybin Madhibaan waa hal mid ah nimaan abtirsiin lahayn ma jiro annaga haddaan Madhibaanna far baanu isku nahay iyo hal faraanti oo isku jira waa farta iyo faraantiga meel kala saari kara waa may beesha Madhibaan qaybinteeda waxaanu geynana ma